dhegaystayaal inkastoo xiriirka xididku uu maamuus dheeri ah ku dhisnaa haddana marmar bay talefara ka haadi jirtay kolkol buu ismaandhaaf la dareemaa ka dhex dhici jiray kolkol bay isku qomayoobi jireen sidaa darteed barnaamijkii koowaad ee taxanahan sidaan ku soo xusay gabayadii xididka dhex maray intooda la hayo waxaa ku jira qaar aan waxba la isu reebanoo wixii la isu ahaa inta la iska hilmaamay si aan wanaagsanayn loogu wada hadli jiray waxaa laga helayaa tixa sodog loogu gabiyey kuwo seedi loogu gabiyey iyo kaba daranee qaar sodo loo tiriyey kolka intaan seediga ka bilaabo aan idhaahdo wuxuu ka mid yahay xubnaha xididka kuwa sida gaarka ah loo dhowro marka la isku wanaagsan yahayna ragga seediga isu ahay sidii ay walaala yihiin ayay u dhaqmi jireen markay isu baahdaan wax isugu tari jireen oo isugu hiilin jireen in seediga af ama adin loogu bareeraana waxay ahayd wax laga xishoodo taasna waxaad ka garan kartaa nin geeljiro ahaaye tix gaaban oo uu tiriyey dabadeedna noqotay halkudheg lagu maahmaaho sida ay soomaalidu ku sheekayso ninkaas iyo gaban yar oo uu walaashii qabay ayaa jeer geel wada xirriyey geeljiruhuna sida la og yahay si aan fiicnayn bay kurayada ula dhaqmi jireen saabaanka geela lagu maalo iyo qalabka lagu shubo oo dhan bay ku rari jireen hadday wax bi'iyaan iyo haddaysan bi'inna mar walba usha iyo dharbaaxada ugama turi jir taasoo ahayd tababarka qura ee ay yiqiineen yeelkeede ninkiibaa wuxuu u bogi waayey kuraygii u seediga ahaa oo goor aan la seexan iska seexanaya alaabtii lagu ogaa kala luminaya fiid walbana geelii oo qaarmaqan yahay soo hoynaya markaas buu aada uga carooday ha yeeshee dhaqankii jiray ayaa u diidayay sida kurayada kale inuu u garaaco ama u canaanto dabadeedna sida muuqata gabay fiican muu aqoone wuxuu mariyey 3 meelisoo iska allow sahala asuu isagu ku carab baaba'ay wuxuu yidhi haddii seedigaa gaban yahoo geela kula raaco si aadan guulguuli karin geelu sahalaabo ileen waad gubgubataa sidii gaaja nimay hayso guud ahaan iyada oo hidduhu uu sidaas ahaa ayaa haddana waxaa jiray rag magaca lahaayo seediyaashood intay isqoomeen u gebiyey malahaygana waxaa ugu caansan allaha u wada naxariistee labadii maansayahanee la kala ohan jiray sayid maxamed cabdilla xasan iyo salaan carabi salaansaha noo dambeeye bal sayidka iyo seediyaashii qaarkood wixii kala gaaray aan soo horraysiiyo sidaynu wada ognahay wuxuu sayidku hogaamiyey ururkii daraawiisheed oo waaxdii hore ee qarnigii 20aad uu waqooyiga ka abuuray muddada dheerna u tafaxaydnaa la dagaalanka gumaystayaashii ingiriiska talyaaniga iyo xabashida ururkaas oo ku jiray halgan hubaysani wuxuu goor noolba u baahnaa ciidan ka kooban dhallinyaro firfircoonoo ku soo biirta taasina sayidka way u suuro gashay sababahana waxaa ka mid ahaa aftahanimadiisii iyo isaga oo si joogtaa ula xidhiiri jiray tolalka soomaalida gadaalkiina ka dhaadhiciyey ujeeddadiisu inay tahay mid mudan in lagu garab galo qoysaskii haddaba caanka ahaa ee inay daraawiish ku soo biiraan uu ugu gacan haadiyey iyaguna ku raaliyey waxaa ka mid ahaa reer cali shire oo ahaa qoyskii geyiga sanaag iyo dadka dega hoggaanka u hayay maalintaas bay iyaga iyo daraawiishi u catameen quud iyo qaaraan wadaagna noqdeen maalintaas bay iyagoo dhagadhan xaruntii daraawiisheed soo buuxiyeen maalintaas baa dab iyo xoolo tiro badan lagu bantookay dabadeed si uu wacadkaasi ugu meel maro 2 arrimood ayuu sayid maxamed ku dhaqaaqay mar qoyskiibuu la xidhiiday wuxuuna guursaday bullo cali shire oo garaadku dhalay waa gabadhii inta quruxdeeda lala ashqaraaray ay bullo shubato ku naanayseen marka labaadna wuxuu u howlgalay kuna guulaystay garaadkii u sodoga ahaa oo weli nool inuu sadanada u caleema saaro inankiisii maxamuud oo maantaa kadib suldaan maxamuud cali shire loo bartay hase ahaatee muddo kadib ayay labadii nin 2 baarqab bay ahaayeene isqoonsadeen dabadeedna habeen madow ayaa suldaankii iyo dadku u talinayay caynka hoosta ka geliyeen oo dhulkoodii dib ugu noqdeen intaana kuma ekaane waxay la safteen reer bari iyo boqor cusmaan oo daraawiish ay col ahaayeen iyaga oo wada jirana dhowr jeer bay ku soo duuleen sayidka oo ahaa nin abaaldhac badani uu soomaalida kala soo gudboonaaday
aad ayay arrintaasi u danaqday. kolkaas buu iloobay amaba is-ilowsiiyey isaga iyo suldaan maxamuud inay xidid ahaayeenoo bulla shubato ay weli u joogto. daraartaas buu afkiisa miciinsaday. wuxuu ahaa nin yaqiin waxtarka iyo waxdhibaalka erey dicaayadeedku uu yeelan karo. sow ninkii ku ducaystay ma ahayn carabkayga eebbow quwee caadil baa tahay. maruu haddaba suldaanka ugu abaal sheeganayay isaga iyo dadkiisa siduu jeer u dhaqaaleeyey qudhiisana uu u boqray waatuu kula garnaqsaday. adoo cayr la dulgulayn haddaan duunyo kugu miisay oo deeblo geel iyo fardo iyo dahabkii kuu dhiibay adhi daad masaalkiya haddaan idin dabaalsiiyey, haddaan daabadii iyo hubkii idinla daaweystay oo aan dunjiga cali garaaduub cad wada saaray asaan dowlad kaa dhigay maxaa duula igu maagtay. isla baryahaas ayaa waxaa taleex lagu soo simay waa xaruntii sayidka sheeko la yaab leh oo laleeyahay waxay dhex martay suldaan maxamuud iyo hooyadii oo sayidkana sodoh u ahayd. iyaga iyo ku allahooda waxay ku warrameen suldaanka ayaa maalin soo maray hooyadiis oo sac iyo ari ay qalatay ka jaraysa hilbo oodkac ah oo dhibaad ahaan ay rabtay inay bullo ugu geyso. markaas buu ku yidhi, hooyo, ninkii shaashka badnaa cunno iigama baahnee xoolaha birta iiga dah. iyana waxay ku jawaabtay, maandhow, labadiinu talada ayaydan ku dirirteen, aniguse wadaadka sodoh baan u ahaa welina waan u ahaye dhexdiinna ha isoo gelin. warkaas markii looga tibix siiyey sayidku farxad buu kala batay. wuxuu u arkay inuu u furay irid uu wax ka wareemi karo. kolkaas buu sheekadii u rogay in suldaanku hooyadii hilbihii ku qabsaday dabadeedna garaacay. wuxuu ku tilmaamay inuu yahay qorqode had iyo jeer xerada adhiga ku jira, caanaha isagu lula, maamulka aqalka iyo waxa hoos yaalna dumarka uga horeeya. intaasoo dhaqanka soomaalida ragga ceeb ku ah. gabaygii uu arrintaa ka tiriyey oo wax seedi loo tiriyo ka yara fool xun aan ka soo qaato tuducyada ugu roon ee halkan laga marin karo. wuxuu yidhi, qumud inaad ku dili hooyada qayladee timide qaduuntiisa waatuu la dhacay, sida qawaar awre qayladeeda waatuu dadkii qaxay ayaantii. naaguhu ninkii qaabka lula uma qushuucaan ee qorqoday ku sheegaan, ninkii qoyska baanjiye wax qawaacidkaas keenay waa qoobadii saca qabsinada haweenkaa cunee qaaxada ha boobin, qadarkana ha kaliryaan indhaha, qiiqu kaa geline habartaana qaaraha ka daa qada haddaad weydo. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo. waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebba idmo. barnaamijkii xiisaha lahaa hiddaha iyo dhaqanka wuu inoo soo jeedinaya axmed.